kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa barnaamij gaar ah oo ku eegayno injineer Khaliif Axmed oo isagu stuudiyaha maanta nagu soo booqday isla markaasina xog waran ka bixin doona xaaladda guud ee dalka Soomaaliya oo maanta marayo iyadoo aan su'aalo dhowr ah weydiin doono kuna saabsan bal siyaabaha uu arko waxqabadka maanta international community-ga ee dalka Soomaaliya ku wajahan iyo qaabka ay u shaqeeyaan NGO-yada Soomaalida ayagu loogu talagalay inay gaarsiiyaan kaalmada loogu tabarucay dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen. Haddaba injineerka oo arrinka nooga sheekeeya bal marka hore isagu warbixin naga siiya guud ahaan siyaabaha uu arko waxqabadka hay'adaha samafalka iyo kuwa UN-ka iyo hadday noqon lahayd kuwa caalamiga ah ee ayagu wadamada gargaarka bixinaya ay keenaan. Bal injineer waxaad marka hore waxaad nooga sheekaysaa bal qaabka aad isleedahay dalka Soomaaliya maanta dhibaatada haysata dadka abaaruhu ay ku habsatay gobolada koonfureed maxaad guud ahaan xog ayaad noo haysaa oo ku saabsan bal dhibaatada Soomaaliya hadday noqon lahayd xagga abaaraha iyo dhibaatooyinka mashaakilka dalka Soomaaliya ka taagan. Assalaamu calaykum waad mahadsantahay walaal aad baan kugu mahadnaqayaa inaad fursad siiso inaynu qaybsanno arrimaha ka taagan abaarta iyo say u saameynayso dadka Soomaaliyeed. waxaan marka horeysa u sheegayaa dhageystayaasheeda kulligeen dadka Soomaalida ah ee ina dhageysanaya arrinta maanta aynu ku jiraa waa halis weyn weeyaan. walaalayaal waxaan idin sheegayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa dhiciska inta midida loo soo sido ayuu ka bakhtiyaa. dadkeeni maanta halis bay ku jiraan saacad kasta. Soomaaliya maanta 10 caruur oo 5 jir ka yar ayaa ku dhimata. walaalayaal waxaa jirta oo kale 750,000 oo Soomaaliya ayaa maanta halis ku jirta inay gaajo iyo macaluul u dhintaan 2-3 usbuuc ay nagu soo socdo. intaa waxaa daba taagan 3 milyan iyo nus ilaa Boqol ilaa South Central koonfurta dhexe koonfurta South-ka ilaa maaragtay South-ka koonfureed inay intaa iyaguna hawl badan oo ah macaluul ay la soo gudboon tahay. walaalayaal dadkaas sida macaluulta ay hayso waxaa haddana dul taagan sidii loo dactiri lahaa oo ka maqan meesha aan ahayn wadamada Turkey iyo wadanka la yiraahdo Arab Emirates ka walaalayaal. marka arrintu maanta Soomaali haddaynu nahay halis weyn haddii dadkaas inaga dhintaan wadankeennina inuu faraha ka baxo weeyaan ma aha arrin laga soo kaban karo maaha. marka waa inaad aad iyo aad walwal uga qabtaan awoontaasaan doonayaa inaan idinla xiriiro oo aan idinku baraarujiyo sidaynu wax uga qaban lahayn. midda kale haddii aanu soo qaadano muxuu ahaa arrinta ku saabsan haatan waxaa magaalada Minneapolis weegan iman doona maalinta Sabtidana ka hadli doona jaamacadda University of Minnesota Augustine Mahiga oo ah isagu ergeyga gaarka ah ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. marka kaalin sidee ah ayay dadka Soomaalida ayagu qurba jooga ah ee ku nool gobolka Minnesota maxaa looga baahan yahay inay ergeygaasi kala hadlaan oo su'aalo hadday noqon lahayd waxyaabaha mashaakilka Soomaaliya ka taagan oo si dhab ah looga hadlo. wadanka aanu joogno waa wadan qofku xorriyadda qowlka uu leeyahay isla markaasina uu ka hadli karo dhibaatada uu tabanayo. marka maxay kugula muuqataa Khaliif arrinkaasi Mahiga marka uu noo yimaado maxaanu ugu talagalnay dadka Soomaalida gobolkan ku nool kulleyba gaar ahaan dad badan baa ku talagalay inay la hadlaan isla markaasina u muujiyaan siday uga xun yihiin sida Soomaaliya arrimuhu uga dhacayaan. walaal su'aashaas waa su'aal qaali weeyaan. waxaan doonayaa dadka Soomaaliyeed ee daawanaya inaan u sheego
ninkan muhiigana meesha yimid waxa weeyaan isagu waa dhexdhexaadiye ninka bolisiga dhiga maaha haddana isagaa mareegaya arrinta soomaalida lala damacsan yahay qof kastoo soomaaliya yar iyo weyn habar iyo oday dhalinyaro iyo waayeel kulligiin waajib baa idinka saaran waajib weyn baa idinka saaran inaad timaadaan mahiigan meeshuu ka hadlaayo iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee iyaguna doodaya inay ku mudaharaadaan inaad labadaba codkaagu dhinac kastaba ha ahaadee inaad timaado mahiigan walaalayaal waxaan doonayaa inaan idin sheego horta dad ahaan haddaynu nahay 22 sano ayaynu baaba'sanayn oo qabyaalad iyo burbur ka soo horjeednay marka qabyaalad hadday wax tarayso miiska adduunyada ayaynu fadhii lahayn oo power baynu maanta noqon lahayn marka mahiigan maanta wuxuu doonayaa inuu inaga dhaadhiciyo in dalkeennii haddii aynu qabyaalad wax ku qaybsanno waxaan la yidhaahdo 4 iyo nuska inaynu wixii inuu wado dheer uu soo safeeyey oo waxaasu meel marayaan qabyaaladii wax lagu qaybsanayay inay ku meel marayso oo hadda 20 sanood waxaynu indhaha iskaga ridnay inuu ku sharciyeeyo oo yidhaa kaa dhaadhiciyo maanta inuu hayo laynkii lagu guulaysan lahaa ee qabyaalad aynu ku ciilbeeli lahayn walaalayaal nin walowba xasuuso 25 sanayna soo dhaafay qabyaaladii iyo qoysqoysi waxa inoo keentay waxaan idin leeyahay gobonnimadeenna markii aynu raadinaynay ee ninka isticmaalka ee caddaanka Yurubiyanka aynu ereynay walaalayaal 4 iyo nus laguma qaybsan waddanka waqooyiga laba hawiil oo Soomaaliya oo nin la yiraahdo Maxamed Cabdillaahi nin la yiraahdo Cali Axmed oo ku dhashay waddanka cadan ku dhashay ayaa 1858 yimid markaasay waddanka waxay yiraahdeen waxaanu doonaynaa inaanu ku dhiirino inaanu gobonnimadiisii dadka yaga inaanu u baraarino waddanka waqooyiga xisbiga la yiraahdo SNL ayay 2 sano ka qaatay 1858 iyo ilaa 1860 marka arday baan ahaa waan iman jiray SNL sida Martin loo baraarujinayo dadku waxay oran jireen marka waxay oran jireen waxaan rabanaa gobonnimo iyo israac bay weligood oran jireen 13 nin oo kale ayaa SYL-sha baabushay koonfurta Talyaaniga haysan jiray 13 ka ninna kama qaadin dawladnimadeena kama qayb galin laakiin dalkeenni waxaynu gobonnimadeena ku hadlay oo isticmaalkii 100 sano in haystay wada jir ayaynu ku helay walaalayaal maantana wuxuu ku sheegayaa mahiigan inaad gobonnimadii aynu sidaa ku soo dhisnay ee 1 sano aynu ku weynay qabyaalad ee Soomaalinimo aynu ku soo dhisnay inuu ka dhaadhiciyo in qabyaaladi ku shaqeynayso oo wax la yiraahdo 4 iyo nus ay ku shaqeynayaan walaalayaal waa inaad taa diidaan oo aan la idin takorin talabaad wuxuu yiri wadan soo sheegay wadadaasaan soo safeeyay oo wax meel la maro ayaa la helayaa oo nin waliba waa saxeexay waxyaan lagu sheegin waa wadada tani wada cakir la weey waa wado iska horkeenkeena weey 25 sano oo taariikh ayaynu u leenahay inaan waxaas waxba ka shaqeynaynin marka walaalayaal waxaa laynagu khasbay laba wax baa laynagu khasbay inaynu kala dooranno nin yiri diin khasaba oo aad u qalafsan oo diintii khalad ka galay inaynu kala dooranno iyo midku yiri qabyaalad baa lagu warwaraya wax wadaninimo kala hadlayaaba ma jiraan mahiigan wuxuu wadaa qabyaaladii xoojinteedii taana waynu soo xaadnay hadday dhageysta walaalayaal waynu soo xaadnay taariikhdeennii gala koonfur iyo waqooyiba qabyaalad iyo 4 iyo nus 5 iyo nus 16 iyo nus 30 iyo nus sida la doonayo kumaynan gobonnimo kumaynan helin gobonnimadeennii waxaa burburisay qabyaalad baa la doonayaa si laynoo burburiyo oo aynu adduunka laynooga tirtiro intaynu isku jeedno waddankeennii in laynaga qaado Soomaaliya kaalaya mahiigan
kaalaya meeshuu ka hadlaayo kaalaya oo ku soo biira kuwa doonaya inay mudaharaadaan bishu 24 markay tahay maalinta kooda oo aan wax isweydiintu wax ma xume wax isweydaarinta xun aan mahiigan afkiisa ka qaadno aan weydiino u sheegno waxaynu rabno Soomaaliya ma qaybsami karto dal kaliyaanu nahay dad kaliyaanu nahay isku diin baanu nahay wadan is haystaanu nahay nama anfacdo inaanu u sheegno maanta berito saadambe 2000 sano 4.5 ma qaadanayno waa inaynu geesinimada keenna haddii aydan taa keenin de gunnimo baynu nahay gunnimana waynu u diyaar garownay intaasaan ku oran ugu dambeyntii anagoo soo koobayna barnaamijkeena gunaanadkiisii waxaan rabaa inaad bal wixii talo iyo tusaale aad isleedahay maanta way ku habboon tahay adiga oo fadhiya stuudiyihii oo MTN ama Bulsho TV waxaan isleedahay maanta way ku habboon tahay erayadii aad isleedahay maanta way ku habboon tahay dadka Soomaalida ee faraha badan ay ku daawanayaan hadday noqon lahayd dunida dacaladeeda hadday noqon lahayd gobolka Minnesota Minneapolis iyo St. Paul maxaad gabagabadii gunaanadka aad isleedahay maanta talo iyo mataqaanaa gunaanadkaagii maxaad ku soo koobi lahayd walaalayaal waxaan doonayaa inaan gunaanadkayga ku soo koobo hal kaliya mushkiladda ina dhex taagani waa mushkilad Soomaaliyeed waa inaynu inagu mushkiladda jeebka gashanaa oo aynu leenahay sidaynu u xallili lahayn aynu u la rogrogan lahayn aynu isaga meel u dhigi lahayn waa inaynu dadka shisheeyaha ama jaar hayna la ahaadeen ama meel fog ha ka yimaadeen inaanu nidhaahno problemka dhibaatadana dhex taagan Soomaaliya annagaa wadayna annagaa meel ka gaadhayna waxaan idin oran lahaa walaalayaal in aynu ku shirno oo aynu u sheegno dadkan doonaya inayna dhexdhexaadiyaan maalinba sheeko cusub ku keenaan in aynu wadankeena ku shirno oo arinteena aynu la galgalano oo aynan u ogolaan nin ajnabihi inuu ina horkaco 20 sano 14 shir ayaa laga qayb galay wadan shisheeye lagu sameeyay 14 ka shir qaar 2 sano qaateen qaarna waxay qaateen isbuuc kaliya walaalayaal inta wax natiijo oo aynu ka hayno ma jirto waxaan idin ku darayaa inta walaalayaal gobolka waqooyiga ee hadda isku magacaaba Somaliland iyagu 3 bilood ayay ka qaadatay intay la galgalanayeen dhibaatada maanta koonfur ka taagan inay meel dhigaan iyaga oo kaliya ayaa arintaas xal u helay aynu la kaashano dadka guusha soo hoyay iyo nabadda soo holiyay waqooyiga sida inagana gacan southka u siin lahaayeen waxyaalo badan oo qurux badan ayaynu ka baran karnaa intaynu dalalka ajnabiga ah aynu ku cararayno marna Nairobi marna Addis Ababa ku cararayno walaalayaal aynu weydiisano gacan dadkeena aynu isku afnahay isku dhaqanahay ee walaalaheen bal inay horta dadkan dhibaatada ka taagan koonfur inay iyaguna dhexdhexaadiyaan oo geed hoose inagu dhexdhexaadiyaan oo kulligeen aynu meel isugu nimaadno oo aynu inagii isku soo noqono maskaxdeeni aynu galno walaalayaal anigu waxaan doonayaa inaan idinku dhiiriyo oo inagu aynu dhibaatadeeni la galgalano oo inagu aynu xal u helno oo aynu ka baxno ninka bahalka inagu dhex jira ama sokeeyaha ahaado ama shisheeyahaade shirka aynu doonayno arinteena inaynu ku qayb galno inaynu ka soo qayb galano haweenkii la kufsaday haweenkii la xumeeyay haweenkii la dilay ninkoodii iyo wiilkoodii ninkii ahaa gacan ku dhiiglaha kii ahaa cadowga inoo keenay kii ahaa warlord inta gacan ku dhiiglaha ahaa kii wadaniga ahaa kii qabiilaysta ahaa kii lagu oranayay shabaab inagu inaynu isu nimaadno oo geed hoos